kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada shabakada codka Tolmoon. waa wiil dhalinyaro ah oo Australian ah, asalkiisuna uu yahay Hindi. waxa uu ka lumay hooyadii isagoo jira da'da 5 sano. 25 sano kadibna waxa uu awood u helay inuu dib u helo qoyskiisa. Zaru Brali waxa uu qoray buug weyn oo uu kaga sheekaynayo taariikh nololeedkiisa, waxaana uu ciwaan uga dhigay A Long Way Home, wadadii dheerayd ee guriga, waxaana loo bedelay filim kaasoo loogu magac daray Lion. filimkaas waxaa loo xushay helidda abaalmarino kale ah filimkii ugu wanaagsanaa sanadka, muusikadii ugu fiicnayd, waxa kale uu ku guulaystay scriptigii ugu wacnaa, duubistii ugu wanaagsanayd iyo jilacaawiyihii ugu wacnaa. Zaru waxa uu dhashay sanadkii 1981, waxaana uu ku dhashay magaalada Kandwa. aabihii waxa uu ka tegay hooyadii kadib markii uu sidaa u dhashay, waxaana uu la noolaa walaaladii Guddu, Kalu iyo walaashii Shakela, iyo hooyadii oo lagu magacaabi jiray Kamila Manshi. waxay ahaayeen dhammaantood kuwa ku wada nool hal qol iyagoo aan haysan wax miciina, taasoo ku khasabtay hooyadii in ay la shaqayso kuuliyada ama fuundiyada ka shaqeeya dhismayaasha. shaqadeeduna waxay ahayd inay soo ururiso dhagxaanta si ay ugu daryeesho nolosha ubadkeeda. Zaru markii uu gaadhay da'da 5 sano jirka, isaga iyo walaalkiisa ka weyn waxa ay tegi jireen goobaha laga raaco tareenada si ay dadka u soo tuugsadaan ama ay u soo xadaan dhuxul si ay ugu beddeshaan lacag. maalin maalmaha ka mid ah sanadkii 1986, Zaru walaalkiisa ka weyn Guddu waxa uu damcay inuu aado oo uu tareen u raaco Burhamber oo 70 kilomitir u jirta Khandwa, waxaana uu Zaru ka codsaday inuu raaco, inkastoo uu dhowr jeer ka cagajiday. aakhirkii waa uu oggolaaday. waqtigii uu tareenku gaadhay Burhamber, Zaru aad ayuu u daalay, waxaana uu ku dhacay kursi meesha ay tareenka kaga degeen u dhow. Guddu waxa uu walaalkiisa ka yar u sheegay inuu sugo, waxaana uu ballanqaaday inuu ugu soo laaban doono si dhaqso ah. Guddu ma uusan soo noqon, waxaana uu ahaa Zaru mid ka raadiyay walaalkii goobta tareenada laga raaco, balse ma uusan helin. waxaana uu fadhiistay gudaha tareen ka mid ah tareenadii si uu uga nasto dhibkii faraha badnaa ee ka soo gaadhay raadinta walaalkii. waxa uu galay hurdo dheer, waxaana uu dib u soo baraarugay 24 saacadood kadib, waxaana uu ka war helay weli inuu ku dhex jiro tareenkii, balse tareenku waxa uu joogay meel kale. waqtigaa uu toosay Kolkata oo 1230 kilomitir u jirta magaaladiisa ayaa uu ka soo dhex toosay. Zaru waxa uu ahaa mid ka raadiya magaalada Kolkata qof uu yaqaano, balse shaki la'aan waxa uu ahaa mid aan aqoon meesha uu ka yimi magaceeda. keliya waxa uu yaqaanay magaciisa, magaca hooyadii iyo walaaladii. kani waa Zaru oo ka sheekaynaya maalinta. waxa uu leeyahay, waxaan ahaa mid dareemaya cabsi aad u daran sababtoo ah ma aanan aqoon meesha aan joogo. waxa aan si xeel dheer u eegay wejiyada ay ag marmarayay, waxaana aan ahaa mid weydiiya su'aalo. waxa uu ahaa mid ku dhex cidloobay magaalo aanu cid ka garanaynin. badbaadada noloshiisuna waxay ahayd inuu cuno hadhaaga cuntooyinka dadku reebaan, waxaana uu ahaa mid seexda aagga tareenada laga raaco. ugu dambaynna waxaa la geeyey mid ka mid ah goobaha lagu xanaaneeyo agoomaha oo ku yaala Kolkata, kadib markii la waayay cid garata. kadibna waxa uu guuray Australia isagoo la safray qoyskii kafaalo qaatay ee ahaa familkii Brali, si uu u bilaabo nolol cusub taasoo xoog uga fog noloshii saboolnimada ahayd ee hilbihiisa soshay. taa beddelkeeda, marka laga soo tagay inuu u guuray qoys iyo meel wanaagsan, riyada u noqoshada hooyadii may ahayn mid marnaba ka baxda maskaxdiisa. mar walba waxa uu ahaa mid ku riyooda inuu u laabto dhabtii hooyadii ee diiranayd, balse waxa uu ahaa mid ka cabsada in ay rumoobi riyadaasi. waxa kaliya oo qoyskiisa uu ka yaqaanay waxay ahayd magacyadooda. waxa uu ahaa xataa mid aan garanayn magaca magaalada uu ku dhashay, sidaa daraaddeed waxa uu ahaa mid quus ka taagan dib u helidda qoyskiisa. muddada waxa uu suurto gashay Zaru inuu barto luuqadda Ingiriisida, kadibna waxa uu ku biiray Australian International Hotel School oo ku yaala magaalada Canberra, waxaana uu ka bartay ganacsiga iyo martigelinta. sidee ayuu ugu laabtay Zaru gurigooda?
muddo dheer kadib waxa uu ku baraarugay Saruu suurtagalnimada adeegsiga adeega Google Earth waxa uu adeegsaday meelihii uu maleynayay inuu ka yimi gaar ahaan waxa uu ahaa mid xasuusta muuqaalada magaaladiisa waxa kale oo uu xasuusnaa goobaha tareenada laga raacay goonida oo ahaa magaalada waxa kale oo uu xasuusnaa fountain-kaas oo u dhowaa goobta laga raaco tareenada isagoo adeegsanayay tirooyin waxa uu awooday inuu xisaabiyo waqtigii uu ku dhex qaatay treenka kaasoo ahaa 24 saacadood waxa kale oo uu xisaabiyay xawaaraha tareenada Hindiya waxa uu helay masaafadu inay tahay ku dhowaad 1200 kiiloomitir marka laga soo baxo magaalada Kolkata isagoo adeegsanaya khariidad waxa uu awooday inuu xadido goobta ugu dhow goobtaasina waxay ahayd magaalada Khandwa kadib waxa uu aqoonsaday fountain-ka kaasoo u dhowaa goobta tareenada waxa kale oo si fiican u aqoonsaday wadooyinkii u dhowaa meelaha si degdeg ah waxa uu ugu safray Saruu magaalada Khandwa halkaas ayaanu ka bilaabay raadinta wadooyinkii goobihii caanka ahaa kuwaasoo ahaa kuwa uu xasuusto weli raadin dheer kadib waxa uu helay gurigoodii balse la yaabka ugu weyn waxa uu ahaa inuu gurigoodu ahaa mid maran oo aan cidi joogin waxa uu su'aalo weydiiyay dadkii xaafadda balse waxa ku adkaatay inay aqoonsadaan qoyskiisa waxaana uu tusay sawir uu isagu leeyahay maruu 5 sano jir ahaa kadibna waxa aqoonsaday qoyskiisa mid ka mid ah dadkii xaafadda waxaana uu tilmaamay guriga cusub ee ay degeen qoyskiisu waxa uu leeyahay Saruu isagoo ka hadlaya ilbiriqsigii uu ishortaagay hooyadii markii ugu dambeysay aan la kulmay hooyada waxay ahayd da'deedu 34 sano jir waxa ay qabatay gacanta waxaana ay geysay guriga ma aysan awoodin hooyada inay erayna tiraahdo sababtoo ah waxay ahayd mid aad ula yaaban kadib markii uu wiilkeedu dib ugu soo laabtay 25 sano kadib halkaas ayaa uu Saruu ku ogaaday in walaalkii Guddu la helay isagoo meyd ah kadib markii la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay muddo bila waxaana meydkiisa laga helay wadada tareenka dhinaceeda ilaa haddana lama oga cidda dishay Guddu iyo sababta loo dilayba dhanka kale walaalkii Kalu iyo walaashii Shakila waxay ahaayeen kuwa dhamaystirtay waxbarashadoodii caafimaad qabna ah warbaahinada Hindiya oo dhami waxay baahiyeen dib u soo helidda qoyskii iyo soo laabashada wiilkii lumay 25 sano ka hor arrintaasina waxay ahayd mid aad loo qaadaa dhigo taasoo ku riixday Saruu inuu alifo buug uu kaga sheekaynayo qisada oo dhammaystiran laga soo bilaabo ilbiriqsigii ugu horreeyay oo uu waayay qoyskiisa ilaa soo laabashadiisii mar kale waxaa loo rogay qisadiisa filimkaasoo soo baxay sanadkii 2016 filimka ayaa gebi ahaanba muuqaynaya qisadaasi sida ay u dhacday waxaana uu filimkaasi ku guuleystay abaalmarinta Oscar-ka oo ah abaalmarinta filimkii ugu wanaagsanaa ee sanadkii 2016